maya konton kilogram dahaba kumaan soo heshiin aniga wada hadalkeena intaas uu ka duunaa konton kilogram dahaba ana awoodayda taa maba ahanba الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta runtii waa maalin aad iyo aad u farxad badan. laba qof oo dhalinyaro ahaan rabnaa insha allahu in ilaahay subxaana watacaala siduu raali ka yahay iyo siduuna amraya iskugu meherino. runtii ilaahay waxaa uga baryaynaa inay noqdaan family waaro. ilaahay subxaana watacaala waxaa uga baryaynaa kuwii is adeeco oo wax iska maqla inay noqdaan oo khayr qabo ilaahay subxaanahu watacaala ha kala siiyo. sida ujeedaan wiilkan quruxda badan oo garabkayga fadhiyo baan rabaa ilaahay hadduu insha allahu uu nagu simo nafta inaan ku mehrino beela cabdikhaaliq xasan iyo waxaynu isku mehrinaynaa sataar ismaaciil jaale. beela cabdikhaaliq xasan iyo sataar ismaaciil jaale. sataar ismaaciil jaale waxaan ku meherinayaa beela cabdikhaaliq xasan oo weligeeda iisoo wakiishay meherkeeduna uu yahay 50 kilogram dahaba. 50 kilogram oo dahaba sheekh dib ugu laaba meeshaas 50 kilogram oo dahab weligeedana sidaas uu iisoo wakiishay. no 50 kilogram oo dahab sheekh kumaan soo heshiin aniga beela bal meesha iga hubso markaa sidaas meesha ku qoran wiilkayga. maya 50 kilogram oo dahaba kumaan soo heshiin aniga wada hadalkeena intaas uu ka duunaa 50 kilogram oo dahaba ana awoodayda taa maba ahanba u jiraan Samiro maamo wax ii sheeg maxaa jiro waxaan ku xidhnaa aqoonaan dad soo fahmay aniga waxa u maleynaa isku wada af noqonaayee ana saas oo maleynaa gabadha ya soo ku diiri karaa abaya sana ii sheegtay aniga ana waqtan cadeyn tahay abaya afkeeda iiga sheegtay inaan saas ku soo heshiiyay أنا سيجيك وقلبينا لكن أنا سيدا قدوم فهم الله وحوها ماذا وأنا العبي منت عاد ما نودي من شرفك واكن نينكي اي كانتي شيخ هرتيسو وحو كلي ما نكويشينين 50 كيلوغرام ايوه اسمعي horta noocan iyo kan dugeesaa ka irxiiran Allah baaya dadku maxaa u sheegaa marka dib ma nooyo guriga ku jirtay dib ugu laabo laakiin gabadha waxay saasay ii sheegtay gacan baa u qaadi moogi waa la tagi lahayd la soo laakiin ninka asaabooda ma gabadha saas bay sheegtay adoo waraaqadiisa ku qorneeday والله كنت هذا وكذا الله وحنا
naa hoogtay maxaa saan iigu ceebays oo saan iigu bahdishay maxay tahay ninka dhahaa 50 kilogram ee gabadhaas kulma heshiinin maxaa qaldan hooy garow leeyahay inuu saas dhaho anaa qalad sameeyey hooy garow leeyahay yaa maxaa qalad sameys muxuu yahay hooy aniga si aan kusoo heshiinay maxaa ku heshiiseen waxaa kusoo heshiinay hee maxay tahay $2,000 kusoo heshiinay hooy $2,000 waa kaala cabsada marka inaan kuula hor imaadaan ku dhaho $2,000 kusoo heshiinay marka saasaa ugu daro hooy asinoo lama wadaagan uma sheegin $2,000 malacaga magac kula heshiinays maxaa isku bahdilaysaa gabadhan oo qurux badan oo reer lacag leh ka dhalataatay maxaa isku bahdilaysaa ebelan dareema ninka xunoo geesaha ka dirdiirine oo suu yaala inuuna bixi karin lacagtaas waa jacaylka ii geey wax walba jacayl hadduu kuu geeyey maxaa asiga aada u dhiibaysa inta siiga dhib maxaa noo ceebaysa aniga hadda maxaan sheegaynaa dad lacag lahoo labada yaqaanaan ahnay maxaa noo ceebaynaysaa gabadhiyaa lasoo duudka dhan hadda waan u sheegay alla booya